بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا aan jeclahay meel walba dunida ka joogtiin ku soo dhawaada qaxootiga Redab TV sidaad horaan ugu barateen arrimaha ku saabsan qaxootiyada caalamka insha Allah muuqaalkeen waxaan ka bogan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan qaxootiga Uganda iyo gaar ahaan qaxootiga hadda ku sugan Kampala caasimadda Uganda waa Kampala ayaan dul istaagi doonaa qodobadaas ayaan dul mari doonaa iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee qaxootiga Kenya haddii aan rijaarno waan insha Allah ka hadlaynaa laakiin balse maanta waxaan diiradda saari doonaa qaxootiga Uganda ayaan ku bilaabanay qodob koowaad maalmahan dambe ee wadanka Uganda mashquul badan ayaa la galay mashquulkaas oo ah in qaxootiyaal fara badan ay ku sii qulqulayaan wadanka Uganda maadaama tirada iyo cadada la sheegin tirada ku sii qulqulayso maadaama wadanka Uganda aan la socono wadanka oo uu marti galitaan badan qaxootiyada waa wadanka ugu badan oo intaasoo kun ama intaasoo milyan aan dhihi karno oo qaxooti marti galiyay oo badanaa dad badan ayaa dib u dejin helay waa wadanka dhaqaaqa xagga dib u dejinta oo saa'id ugu howlgalaan dib u dejinta aad ayaa wadankaas Uganda loogu baxaa marka dad badan way mahadiyeen hataa boorsayada oo lagu soo diro wadamada Yurubta waxay u badan yihiin Uganda ayaa zaid wala buubsiya kiisaskooda ee dib u dejinta ama buufista ama socdaalka sida loo yaqaano maalmahan dambe waxaa badanaya dad badan oo isdiiwaangelista oo raasanayaan asylum seekers warqadda ku suga ee kaarka lagu sugayo ayaa maalmahan ka socotaa shaqadaas ayaa la diiwaangelinayaa kumanaan kun ayaa maalintii la siiyaa warqadda asylum seekers iyo sidoo kale warqad kale waxaa jira xagga booliska laga soo qaato oo wadanka joogga ah oo taas u horeyso oo warqadaasna aad ku shaqaysanayso laakiin balse haddii aad warqadaas hesho haddana warqadda kale waxaad soo qaadanaysaa xagga hay'adaha UNHCR bixiso waa asylum seekers waa codsanaysaa kadib waa lagu siinayaa ilaa iyo 2 bilood ilaa iyo 3 bilood ayaad sugaysaa kaarka weyn iyo manifesto iyo waxyaabaha la mid ah 3 bilood ilaa 2 bilood ay qaadataa muddada ay qaadanayso oo lagu sugo ku sugas ayaa sii qaadanay hataa ku sugas adoo haysata oo lagu sii doodi karo qof kale oo ku soo doodi kara waa aqoonsi warqad yar aqoonsi waaye mid kale maalmaha maxaa mashquulka ka dhigay in wadanka Uganda lagu sii qulqulo waa su'aal aad badan oo su'aal aad u fiican sababta tahay si wadanka Mareykanka u dhawaaqay Group 5 ee barnaamijka cusubnaayeen oo la sheegay in qaxootiyada cusub oo la daadgureyn doono qaxootiyan kriskooda oo wadanka Mareykanka gacanta ku hayo in Group 5 loo sahlay ayaa sababtay markii inay kumanaan kun oo isku diiwaangeliyaan ay hadda si diyaarsadaan si hadhowta dee process hela wata iyo hadhood loo soo dacwoodo marka wadamada loo soo dacwoodo sida hadda marka la isku barbardhigo wadanka Kenya ee Uganda marka la isku barbardhigo in xagga socdaalka ama dib u dejinta boqolkiiba 90 iyo 95 waxaa fiican wadanka Uganda ayaa fiican 95 waxaa fiican wadanka Uganda marka laga barbardhigo Kenya sababtoo wadanka Uganda waa wadan oo caadi ah oo wadan oo inta soo qurbiyaal ama inta soo joogan deeq bixiyaal wadamo badan iyo qurbaha ayaa helaan wadamada sida Jarmalka in Canada Sweden Australia Norway Holland ay farabadan yihiin wadamadaas oo macnaha qaxootiyada qaata inkastoo la Kenya marka la barbariyo wadamo yar oo kaliya kooban ayaa qaataan sidaas darteed marka wadanka Uganda zaid ayaa loo baxay hataa wadanka Uganda kiisaskeeda aad ayaa loo fudeeyay sidaas ay dadka jecel yihiin sida Kenya camal kiisaskooda la daahinay waqti dheer qaadanaysa maahan marka Kenya Uganda marka kiisaskooda waa boobsiis ayuu ku soconaa ilaa iyo cudurdaar kale sida COVID-19 iyo waxyaabo kale inuu saameeyo mooshi balse kiisaskooda ka fudud ee dhanka Kenya marka insha Allah fadlan hadii muuqaalkan soo gaarto saaxiibta asxaabta waxaan iga codsanaynaa inaad muuqaalkan aad subscribe saarto hadii horaan noo saarin like noo saar noona sheegana muuqaalkan insha Allah muuqaalo fara badan ayaa soo wada hadda arintaas ayaan ka hadlayay iyo arrimo kale oo socdaal ku saabsan ee wadanka Uganda muuqaalada xiga ayaan soo badin doonaa sidoo kale wadanka iyo qaxootiga ku nool Ethiopia waan soo hadli doonaa Djibouti qaxootiga yar ayaa ku nool Djibouti waan soo hadli doonaa Sudan waan soo hadli doonaa Tanzania inkastoo qaxooti yar oo joogan laakiin wili aqoonsaneen waan soo hadli South Africa qaxooti fara badan ayaa joogan marka insha Allah wadamada caalamka dhan sidoo kale waxaan soo hadli doonaa Malaysia qaxootiyaal ayaa jooga dhammaan waan soo hadli doonaa insha Allah waana maasida asxaabta
wabilaahi tawfiiq.